mararka qaarkood hal sawir ayaa nagu filan xukun degdeg ah inaan ka gaarno arrin dhacday. Waxaan ismoodnaa inaan fahnay xaqiiqada annagoo aan arkin inta ka maqan sawirka. Laakiin isweydii, sawirku ma wada sheegaa runta? Marka sawirka laga dhex saaro dhacdadii uu ka tirsanaa, wuxuu abuuraa faham hal dhinac ah. Qof ayaa kugu muuqan kara dhibane, midka kalena dambiile, adigoo aan ogayn wixii ka horreeyey amaba wax dhacay ilbiriqsiyo kadib markii kaamirada la shiday. Aragtidu had iyo jeer waa mid ku xiran xagasha lagugu tusiyo. haddii aan dhex galno muuqaalkoo dhammaystiran, sheekadu weji kale ayay yeelatay. runta looma koobi karo hal xagal oo keliya. mararka qaar waxa indhaha laga qariyo ayaa ka muhiimsan waxa lagugu soo dhoweeyey. xaqiiqdu waxay u baahan tahay meel ballaaran oo lagu falanqeeyo. tani maahan eedayn loo jeedinayo qof ama warbaahin gaar ah. waa digniin ku socota garaadkeena annagoo idin. ha ku degdegin go'aan gaaridda dunida aan ku noolnahay. wax walba uma muuqdaan sida ay dhabta u yihiin. marka koowaad daawo, falanqey, kadibna garo xaqiiqada jirta. kani waa barnaamijka indhaha furan. waa halka aan ku baranno sida loo dhuuxo sawirrada iyo wararka nagu hareeraysan si aan u garanno xaqiiqada iyo runta qarsoon.